toddobada samaawaad ee kala sarreeya dhulka iyo inta u dhaxaysa makhluuqaadka ku nool giddigood waxay u tasbiixsadaan allah. ma jiro makhluuq ku nool cirka iyo samaawaadka oon u tasbiixsan ilaahay. culimada sayniska jiitay ayaa horay u kashifay in makhluuqaadka ilaahay abuuray unugyada ay ka samaysan yihiin sida unugyada jidhka bini-aadanka iyo weliba unugyada ay ka samaysan yihiin ubaxu ay bixiyaan dhawaqaysan dhegta bini-aadanku maqli karin oo u eg nooca tasbiix ilaah ugu tasbiixsanayaan. culimada sayniska geologiga ayaa qarnigii 21aad oo hadda 2010 ayay culimo u dhashay dalka Japan waxay kashifeen in dhulkan aynu ku noolnahay isaguna uu bixiyo dhawaqaysan maqli karin dhegta bini-aadanka oo tasbiix ilaah uu ugu tasbiixsanayo ah. arrinkan ayaa ilaah horay inoogu sheegay suurat al-Isra 1400 sano ka hor. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. allah waxa uu inoogu sheegay suurat al-Isra waxa uu tasbiixsadaa allah samooyinka toddobada dhulka iyo waxa u dhaxeeya mana jiro shay aan ilaah u tasbiixsan waydaan se garanayn oo fahmayn qaabka ay u tasbiixsanayaan. bal haddaba ilaahay qaabka uu inoogu sheegay inaynaan fahmayn bal ila fiirso dhulku sida uu tasbiixsanayo. waxaa 10,000 oo jeer weyneeyey oo hawada ka duubay laanta u qaabilsan cilmiga sayniska jiitay ee NASA waxaana cilmi baariyahanada aan islaamka ahayn ay u yaqaanaan hamhamta ama heesta dhulka halka kuwa islaamku ay u yaqaanaan tasbiixda dhulka. like oo la wadaaga asxaabtaada.